dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay tixgelin gaar ah la siin doono dhugmatiyada ka soo jeeda hay'adaha Somaliland, gaar ahaan kuwa dhalashada, guurka iyo dhimashada. wasaaradda khaarijiga ee Mareykanka ayaa website-keeda ku baahisay in waraaqaha ka soo baxa hay'adaha Somaliland ay leeyihiin nidaam kayd oo wanaagsan, waxaanay sheegeen in la aqbalayo marka uu qofku dalbanayo dalku-galka dalka Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sheegtay in nidaamka kayd ee dhugmatiyadan ee Somaliland uu ka wanaagsan yahay kuwa dalka Soomaaliya.